كوي اللي احنا نرضى سكوتشر بلايو هلال وكميدو تغير محدك الحرمين انترناشنال انستيتيوت مغالة عاركاو يا مدح الشهرين لقو قداسين يلوغو غفتي هو الكمحدك الحرمين انترناشنال انستيتيوت وغرم بحال كاسي شاشين كبحيي معمولي محدك الحرمين انترناشنال انستيتيوت بروفيسور عبد الله الشيخ أحمد معهد تعليم الحرمين أولو فريكون سقال بغل سقاشن يتطبدي إلى هدنا الطوس وشغين إياه لانتا عرقابو وحال فري لبدا بشي لحاد كودي دي لبدا كونيو صدح إيو طوانكا سوغا لغو فري هل قلاس إيا هل معلين معهد تعليم الحرمين لانتا عرقابو وقتiga hadda xaadirka ardayda joogta qaybta xirfadaha iyo luqadaha 470 wiilashu waa 191 gabdhuhuna waa 279 macadku wuxuu sameeyay 2015 bishii tobnaad primary buu furay primary gaas oo dugsi hoose dhexe manhajka كوبها إنجليز كوبها وحنا ككوبين يهاي وحنا مركا ككوبنا كوباد إلى أفراد هذا هو حال قدري شناد إلا تضبات معناها دكسي هو سد حوي فصل كسديدات وحلو قادم وهي سي سنة كدنبي أرض تضبات كاللوجو عربيو إني سديدات إن شاء الله تعالى امتحان كسر ليس ككينا النتيجة ونكسن كلاسيدا أما فصل هذا وحلقوا برتوا لباتني يصدح أفر حفيس أفر مسقولات يصيدوا كله لبا يستور شغالة سكول كوحوية لباتني أفر لباتني لح لدمسي لباتني يكو ورق شنو ودمه كورسوين كبح معدك تعليم تاع الحرمين لان تعرقابو واللغة الإنجليزية ودقدقي عادي بله كمبيوتر كهاردوير سوفت وير حساباتك عافيماتك ونيرسينا سكرتيريال ستادي اوفيس مانجمنت بروجكت مانجمنت يو يغنو ديارة كورسوينكا وديارة إن لدكتو human resource management job interview marketing financial accounting job application and report writings adult education dadka waaweyn oo lagu talagalay inay Soomaaliga xisaabta iyo ka dhisbaan Carabiga kadibna Ingiriiska loogu daro intaas ka gadaalna ay markaa kor socdaan scientific subjects afarta scientific muhiim ah oo loo baahan yahay in ardayda iyagana loo sameeyay macallimiin aqoon u leh maadooyinkaas CV programs preparation courses for adults dad preparatory courses la sameeyay oo loogu talagalay dadka waaweyn oo baadiyaha ka yimaada ama dadoodu weyntaan iskuul tagin si ay u helaan koorso muhiim ah oo ay hadhow la qabsadaan dugsiga dhexe iyagoo dadooduna ay kaga faa'iideysanayaan small business oo iyagana loogu talagalay workshopyo ardayda dadka ganacsatada ah si ay aqoon ugu yeeshaan ganacsiga upgrading language course loogu talagalay in dadka lagu kobciyo ardayda iskuulada dhigata oo kulliyada luqadaha iyo sidoo kale koorsooyin kale oo loogu talagalay dadka dibadaha u socda oo bil ah iyo mid laba biloodaba NGO management midwifery oo loogu talagalay hablaha inay la helo habla aqoon u leh oo badbaadiya hablaha xaaladda dhalmada markay ku jiraan civil engineering sidoo kale markaan ka hadlo dufcadda hadda ingiriiska luqadda ingiriiska waa dufcaddii 8aad laanta cergaaba ka baxday computerkana waa dufcaddii 7aad hardware dhinacaas waa dufcaddii iyadu 1aad ardayda ka qalin jabisay dhammaantood waa 70 ardayda qalin jabisay dhammaantood 72 arday sorry ardada hadda caafimaadka rabtay inay ka qalin jabiso iyo ingiriiska iyo computerka marka la isku daro waa 72 arday inta bisha dambe qalin jabinaysa ardaydii hore u qalin jabisay waxay ahaayeen hadda shahaado qaadanaya inta baastay dhammaantood marka la isku daro 84 inta hadda shahaado qaadanaysana waa 61 marka la isku daro dhammaantood
ardayda kaalmada gashay qaybta luqadda ingiriiska gabadha koowaad waxa weeye Rooda Cabdikariin Xirsi oo kaalinta koowaad gashay kaalinta labaad waxa galay iyo saddex arday isku haysta Saciid Ibrahim Ali in Asiya Ali Yusuf iyo Faadimo Maxamuud Saalax kaalinta saddexaad Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen qaybta hardware-ga kaalinta koowaad Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen kaalinta labaadna Mustafa Cabdulqaadir Saciid kaalinta saddexaadna Yaasiin Xuseen qaybta computerka software-ka kaalinta koowaad Cabdullaahi Yuusuf Axmed kaalinta labaadna Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen kaalinta saddexaad Samsam Xasan Ducaale dugsiga Alxarameyn wuxuu balangariyay 5 sano soo socda istiraatiiji balaanka uu leeyahay 5 sano soo socda waxa weeye koow in iskuulada Alxarameyn oo ku yaala Boosaaso iyo Ceergaabo la ballaariyo laga furo baran Burco Garowe Hargeysa Xigalool iyo Ceelaf Weyn dugsiga tacliinta Alxarameyn ujeedadiisu wuxuu heelan yahay inuu bulshada wax baro barana waxbarasho tayo leh macnaheedu waxa weeye waxbarta aan barwaaqo gaare waxaan u hambalyeynaya ardayda halka qalin jebisay waxaan leeyahay koorsooyinku inta ma aha ardaygu waa inuu dadku waqti maanta la joogo waa knowledge 7 aqooneed waa in laga faa'iideystaa waqtiga yar iyo weyn male waxbarashadu de waxaan codsanayaa in laga faa'iideysto waxaynu ognahay Ceergaabo inay leedahay kalamadaada wanaagsan inay leedahay amni inay leedahay khayraad fara badan ee ka duwan tahay gobolada kale ee dalka sidaa daraaddeed waa in jaaniska waxaan ku talinayaa in jaaniska laga faa'iideysto qofku qiimo kuma leh inuu cunto cuno dharna xirto qiimo kuma leh aqoon buu qiimo ku leeyahay waxaan ku soo koobayaa waxbarta aan barwaaqo gaare aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu هذا الدعاء يدردل سكوتي راردي دوسو تشيدي بقول محمد نوح آدم الحرمين يا معلمين تيسا أرضيدا مسؤولين عقاش ويلك باليردا وهذا صحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دوديت فرحت وين بيت يا مات مناسبة الثانية أنا كسوق يبغلو قلت بنت أرضيدا baratay ingiriiska iyo computerka munaasabadoodii maanta qalijabina oo maalin farxadeed ah farxad weyn bay noo tahay inaanu qiimeyn soo siino kala soo qayb gallo waxaana leeyahay ardayda aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idiin hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay hambalyo waxaa baratay allah idinku anfaco kuwii dalkooda iyo waalidkood baa anfacaan allah idinka yeelo waxaa baratayna waxaa laydinka rabaa inaad hore usii marisaan oo wixii aad intaasoo waqtiga kusoo lumisay inaad ka faa'iidaysataan ayadaan lubin oo haddeer markaa maanta qalijabinta shahaadada qaataan inaan iska tuurin laakiin waxaa la rabaa inaad halkaa hore uga sii socotaan ilaa heerka noocadeed waxbarashadu ma dhammaato sidaa macalin oo kasoo sheekeynayay waa wax idin anfici doona waa inaad ku dadaashaan waalidkiina aan la khasaarayn aan idinku soo tabcay ee halkaa idin soo gaarsiiyey ee hiil iyo hoow idinla garab taagnaa iyagana waxaan leeyahay waa uga mahad celinaynaa iyagana insha allah waxaan rajaynaynaa inay carruurta kor sii wadaan waxaan kaloo halkan aad iyo aad ugaga mahad celinayaa maamulka alxarameyn oo khudbad fiican kasii jeediyey oo waxbarasho tayo leh halka maanta inooga akhriyey iyagana waxaan leeyahay ballaarintaas aad sii ballaarinaysaan alxarameyn idinkuna halkaa kasii wada iyo dadaalkaa iyo arrimahan qiimaha leh halka ka sheegteen intaba waa idinku hambalyeynaynaa garabkiina allaha galo hawshaas qiimaha leh meel walbaa ka furaysaan iskuulka iyo xafiisyada waa ka furan doontaan insha allah waan idinku hambalyeynaynaa waana idinkula shaqeynaynaa insha allah waqti ma hayno kolleena meel kale laga sugayaa waan idiin mahadcelin ardaydan waxaan leeyahay hambalyo waxaa barateen allah idinku anfaco waxaan idin balanteenu tahay inaad dadaal muujisaan oo intaa kasii kordhisaan waxbarashada kuwa kalena ee soo socdana iyagana waxaan rajaynaynaa inay iyaguna dadaadaan si ay maalintooda qalijabinta aanu halka ugu insha allah isugu nimaadno idinkana waxaan qaybta kale hadda ku jirtana ka faa'iidaysta waqtiga ardayda haddeerto waxay u badan tahay intay ka soo baxaan iskuulka
intay buugga halkooda dhigaan inay bisna aroorta ka qaadaan waxaas uma jiraan habeenka weyna waa xaqridaan duruustii maanta soo qaatay habeenka weyna qaybtaan waa inaa ka faa'iidaysataan annagu waqtigii hore wax soo baranaynay habeenkii 7 habeenimo suuqa noloma ogoleynba waxa la kabiir baa jiro dadka dabageli jiray waxaas uma jiraan hadda arday la dabagelayaa oo aroorta feelka la taagaya oo rubuta xilli ka bixinaya oo kabiirka halka soo istaagaya oo la yaxalay halkaas uu maray meeshaas uu taagnaa dhaqan xumadaas uu waday badana ma jirto وأنا رسالة معلمينتنا بعدان احترامتان وأنا قادتان واحد يدرس جديان قادتان وايو فريقوا حلولوجي اللي معلك أنت قبل تمديره يو لفتر والدك على عادك معلك مرة هذا المعلك قدود يديروا لا يابسان مرة لينيا حرم لينيا هذه دوما ستين تدال بين شكوكنا هي وحال الله يدين برينا الله يدكوا فعو هل كان هروب بس يوضع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxay sidoo kale ardaydaasi halkaasi ka soo jeediyeen waxyaabihii ay ka barteen maxadka alxarameyn international institute iyagoo sidoo kale ardaydaasi halkaasi ka soo bandhigay buugaag ay soo diyaariyeen ardaydaasi buugaagtaas magacyadooda la yidhaahdo Light of the World. It is a time of a celebration of completing a new life and opening a door into the world of work and all the choice and responsibility that go with it. Secondly, I thank my parents that helped me and standing by my side with great sincerity. I think I reached my objective and I dreaming became true. Ladies and gentlemen, let me express my view towards English language. English language become important key to open to all mind door and around the world. If you like speak English and join the world, I would like to grant education flowers. Here you will have stated the crop is if you continue your education and the key of education is the language and the best and most used language is the language I am speaking. In my calculation, thank you 1,000 times for your respectfully listening to my speech. So waxaan maanta jecelahay inaan halkan ku soo bandhigno buug aanu ka ururnay cilmigii aanu muddada dheer soo baraynay iyo fikirka iyagii aanu isu geynay oo aanu ka soo saarnay buugga magaciisu yahay Light of the World ama iftiinka adduunka buuggaas oo aanu isla wax badan buu ka anfacayaa bulshada xiisaysa aaladda kombiyuutarka buuggaas oo ka kooban qaybo fara badan oo aanu isla bulshada wax badan buu ka anfacayaa haddaan wax idinka sheego contextiisa waxaa ka mid ah who is the father of the computer hardware device community with the computer advantage of the computer chatting and social media input device group ka soo sameeyay magaciisu waxa weeye World Development Group email ka laga xiriirayana waxa weeye World Development Group @gmail waana kan buugii ardayda soo sameeyay waatan contentigiisu wuxuu ka kooban yahay 49 haddana waliba ku guda jirnaa wax kale ku sii kordhino qofku u baahan wuxuu ka qaadanayaa maktabadaha oo dhan baan u dhigaynaa ama alxarameyn ardayda soo sameysay iyo macallinkii nagala qayb qaatay dhammaan waa kuwa haddana waxaanu guddoonsiinaynaa buugga maamulaha maxadka Cabdulla Sheekh Axmed. halkaasi ku soo xidhay xafladda gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ardaydiina guddoonsiiyey shahaadooyinkii. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka iyo ardayda maanta halkan isugu timi iyo waalidiinta ku soo tacabtay ardaydanba aad baan runtii ugu mahadcelinayaa xafladda qiimaha badan leh sida ay u soo agaasimeen iyo sida ay u soo qalijibiyeen aad baan ugu mahadcelinayaa runtii farxad bay aniga ii tahay ka maamul gobol ahaan in maanta inta 6 arday oo aqoonta kala gedisan dugsiga alxarameyn uu bixiyay qaybi uu ka soo waramay maamulku yani ka soo qalijibiyay maanta aad bay farxad iigu tahay waxaan rajaynayaa inay dalka iyo gobolka iyo caasimadda Cergaababa wax weyn ay tari doonto aqoontiina haddii ay ka dhigo waxaan aad runtii ugu idinku baraarujin lahaa aqoontu waxa weeyaan meel ay ku dhamaato malaha kordhiya
oo haddii alla ka dhigayo sida digreega iyo maasterta iyo PhD-gaba u wada qaadan doontaan ku dadaala haddii ilaahay ka dhigo ha is odhanina waxbarashadii meel baa gaadhay marka digri aad qaadataan ama diblooma aad qaadataan yacni dad badan baa is yidhaahdaa aqoontii waad gaadhay waa furihii waana dadaasheen meel wacanna waa gaadheen insha allahu ku sii dadaala weliba ku dabaqa inaad tihiin akadeemi aqoon-yahamiin inaad tihiin ma aha waxbaanu barannado suuqaanu sii gelayna waa inaad wax kasta oo wanaaga dadka aad fartaan kala qayb qataan sidii gobolkuna uu hore u mari lahaa iyadana insha allahu waa idinku baraarujinayaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin kollayba farxad bay ii tahay mar labaad waan idinkala qayb geli doonaa xafladaha kale iyo insha allah intaan xafladaba aani jirin marar kalena waan soo booqan doonaa iskuulkiina aad iyo aad baa u mahadsan tihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين ياسين حسين؟ ياسين. ياسين اللي قبصوه. هاي إدهم دو يربح هاي. ياسمين. قبصالك. فاطمة عبد الرشيد محمد. وهي. محمد عبد الرحمن حسين. أسماء صالح يوسف. أسماء صالح يوسف. شكور فارح ابراهيم أشكر فرح شكور فارح ابراهيم محمد عبد الرحمن حسين محمد عبد الرحمن حسين هاي دي بقصير وحي بدون تسجل زهير محمد ان شاء الله تعالى انت كلنا فتح محمد يوسف سراج ميديا نيوز .wordpress.com